dalkaagii magaaladaadii madaxda Soomaaliyeed ee muraayadii dalka shacabkana iyo magaaladana taariikhdeeda horaad ula socotaa magaaladan waxay soo martay marxalado kala duwan barisamaadkii magaalooyinka adduunka kuwa ugu nadaafada badan uguna amni badan ayay kamid ahaan jirtay maanta annaga maamulka joognana waxa aan rabnay inaan hamigaas tusno shacabka Soomaaliyeed sidii magaaladan barisamaadku soo noqon lahayd adiga soo noqoshadaada imaatinkaaga waxay runtii u noqonaysaa role model dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay ka tarjumaysaa Soomaalidu inay taariikh leeyihiin adduunkana wadan walba iyo ummad walba waxay ku horumartay waa taariikhda ay leedahay taariikhdaas oo runtii jiilalka dambana ay buugaagtana ku arki doonaan library-da adduunkana ka arki doonaan in Cabdi Bile Cabdi uu jabiyay rikoorkii orodka 1500 ee adduunka maantana wali rikoorka la dejiyay uu 10ka ugu horeeyay wali ka mid yahay taasoo runtii ah guul qof kasta orodyahanna oo adduunka u soo hoyatay Cabdi Bile Cabdina u soo hoyay marka guushiisu waa mid adduunka oo dhan ah isagoo matalaya Soomaaliya marka ku soo dhawow magaaladaadii gobolkana lagama sheekeynayo adigaaba matali jiray oo muxuu ahaa magacii gobolkana mar huwan jiray maantana inaad official governor la joogtana waxayna gelinaysaa farxad iyo diilo sidaad ka aragtid haweenka iyo dhalinyaradana waa dadka mar walba u taagan jiritaanka ummadda Soomaaliyeed midnimada wadajirka iyo sidii la isu keeni lahaa ummadan oo aad arkayso haweenka quruxda badan waxay u yimaadeen waxay tahay halyeega Cabdi Bile Cabdi marka aad baan ku soo dhaweynaynaa kuna soo dhawow magaalada Muqdisho intaas kadib waqti ma harin oo waxaan isleeyahay inaan muxuu ahaa aan microphone-ka siiyo ila soo dhaweysaan halyeey Cabdi Bile Cabdi oo ku soo dhawaado fadlan ku soo dhawaado